madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan dalka Kenya ayaa magaalada Nairobi kula kulmay safiirka boqortooyada Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Dr. Maxamed Khayaad iyo ku-xigeenkiisa. kulanka oo muhiimad ballaaran u lahaa Puntland ayaa waxaa looga hadlay xiriirka ganacsi siyaasi ee Puntland iyo dalka Sacuudiga iyo sidii dalka Sacuudigu ay Puntland uga gacansiin lahaayeen la dagaalanka argagixisada, amniga, iskaashiga ganacsiga, dhaqaalaha iyo maalgashiga. waxaanu ku soo dhamaaday guul iyo is-afgarad. Ambassador Dr. Maxamed Khayaad ayaa xusay in kulanka uu la qaatay madaxweynaha Puntland muhiimad gaar ah uu leeyahay, isla markaana waxa uu bogaadiyay horumarka ballaaran ee Puntland ku tilaabsatay. waxaanu xusay in boqortooyada Saudi Arabia ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay Puntland uga sameynayso maalgashi ballaaran. ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in muhiimad ballaaran uu leeyahay kulankan dowladda Puntland, khaasatan dhinacyada ka shaqeynta amniga, iskaashiga ganacsiga, dhaqaalaha iyo maalgashiga. isagoona madaxweynuhu safiirka uga mahadceliyay qaabilaadda heerkeedu sareysa ee uu kala kulmay safaaradda dalka Sacuudiga iyo is-afgaradka buuxa ee laga gaaray dhammaan arrimaha muhiimka ah ee kor ku xusan.